qaar ka mid ah cuqaasha iyo madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa maanta shi jaraa'id ku qabtay hotelka Oslo ee magaalada Boorama kaasi oo ay ku taageereen go'aankii guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda Soomaaliland isku raaceen ee dib loogu dhigay doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada Soomaaliland isla markaasina waxay ganafka ku dhufteen hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo shalay dalka dib ugu soo laabtay haddaba waxaan ka digaynaa haddaan odayaashina xaqiiq run la isku sheego weeyaan walayaasha waqtigooda dhamaaday haddii la yiraahdo waxba la kordhinaya waxaan ogol lahay ma jirto haba yaraatay laana nin 3 jeer 2 jeer la kordhiyay shalay waxaanu ka maqlaynay gudoomiyaha guurtida sidoo ku yimid oo golaha guurtida maanta inuu yiraahdo waxba la kordhinaya hadalkiisa la dhansado ma ahayn qof damiir li wuxuu yiraahdo maaha waa in la xishoodo waa in dadka la xaq dhowro waa in sharciga la ilaaliyo Soomaaliland waxa yar isku hayaan waxa weeyaan sharciga maxaa dhacay waxa weeyaan waa la wadaleeyahay waa la wadaagaya hadii la wadaagi waayo cidii xumaysaba iskale ilaahayna uu weydiin al fitnatu naa'imatu ala tallamana qadaadu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa fitnatu way hurudaa kiik ciyaana qaba salaba galba maanta qaba isagaana rimuud ku soo yu ku hagaya waxa weeyaan hal laga noqdo annagu wixii la saxeexay baan ogolahay wax kale ma ogolin annagu cidda si haysan leedahay cid wad ku ogol yahay ma ummaduna ogoshahay ma ilaahayna ogol yahay ma dakada naga saarin hadaba marka annagu waxaan leenahay hadday doonaysaan oo danaynaysaan dadadiini waa dhamaysateen waxna meel baad dhigateen dubadkiina waa dirateen hadda danaynaysaan wadanka dadka jooga jiritaanka hadii la danaynayo waxa weeyaan hal wadaaga talada miiska soo dhigo sideeda u socdo hal lagula barotomo hal lagula yaacay nasiibkaaga qaad baa ninka leeyahay war waxaas ma xaq ahayntii kuwa maanta lagu sii riixaya foostade inta sugayay in nasiibkooda ay qaadaan ma yaa lagu khasbaya isaga waxyaabaha ilaahay ma ogola diintuna ma yiri saddex nin baa wadaagay sonkor dhinaca buu ka galay wuxuu yiri war hebelow anigu qaraar baan ka gaaray qaraar mad ka gaadhay adu wallahi in yarba jigaabo waayo waxay dhaaftay macaankii bay dhaafto qaraar bay noqotay way badatay doorashadu waxay macaan tahay mar inta lagu tala galay marka aad ku joogto lagu birin kara laakiin waxaan anagu ma artay diidanahay oo nu ka digaynaa oo nu baaq dheer u direynaa hadii wax weyn sanadka ay dhaafto sanadka waxa weyn komishanku ay qorseeyeen hadii qiimuhu soo ku dhaafo wax weyn meesha waxa ka dhaca decidii mas'uuliyadeeda la qaadi doonto Khadar Maxamed Xasan Labaqayle TV-ga caalamiga Som News magaalada Boorama.